وبراني ضيعي وكاسو بالراني بالشرق وبالغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. عرور بين دلين آدن إيحاو كلية إمس عرور بو إلهي سيئي أنا كوشيغا إمك واي أيغا وحي وطان دادكان بدن كودو وحي وطان منهجكي قالدا منهجكي قميستها منهجكان قميستها كصوتك منهجك رنتا وحد كاليسا في القرآن الكريم آيات كاليسا قرآن كآيات كاليسا قرآن كإلهي وحو كتغي مجرته منهجك ربطة أقوانت ربطة وحد كاليسا قرآن كآيات كاليسا قرآن وان كوكوسي الشيغي قرآن كو إناد جعلاتا وإناد أغاتا إنو يهي حي كائن إنو يهي تاغن إجراء النول وحي تغي waxa hadda socda iyo sida ay noqonayaan oo inoo sheegay mar walba oo inoo sheegay Rabbigi subhanahu wa ta'ala. haddaba Haabiil iyo Qaabiil waxa la dhashay laba gabdhood oo la kala yiraahdo Ikhliim iyo Layuus. waa Ikhliim iyo Layuus. Aadam iyo Xaawa waxay dhaleen 41 caruur bay dhaleen. 41 caruur bay dhaleen laba ay u dhalayeen mataan aan ka ahayn kii ugu dambeeyay oo magaciisu ahaa Shiith oo Nabii Ilaahi Shiith alayhi salaam ayuu ahaa. haddaba su'aalaha marka intaynaan gaarin faahfaahinta aan yar ku sii biiriyo intaan ku sii biirinayo waxay tahay waxaad ogaataa Ilaahay inuu Quraanka inoogu sheegay qoom waliba inuu ka soo dhaxsaaraye nabi u sheega alle waxdaaniyadiisa in alle kaliya la caabudo oo aan wax kale la caabudin. waayahay qoom waliba marka lagu leeyahay Soomaalina way ku jirtaa qoomamka la sheegay ilaa qoom waliba marka lagu yiraahdo Soomaaliya exclusive kama aha way ku jirtaa waayo taariikhdii hore ambiyadii hore way jiraan وإلهي القرآن كيس أيو نوغو شيغي ويدي قوم وليبا وحان كسو دحسارني نبي دد كيس أيان كسو دد كودي أيان كسو دحسارني سيو وو شيغو وحدانية الرب سيو وو شيغو هدبا بلتوس أنو تقنو مركان أنو تقنو هرقيسة ميلو جرتا 7 كيلومتر 67 كيلومتر لو سعنايا adigu ilaa 30 ilaa 45 mitir loo soconaya ee la yiraahdo Laasgeel baltag. maxaa yaala Laasgeel waxa yaala taariikhdii dhabta ahayd ee aadanaha ayaa taala oo ka soo askulmeen taariikhdii dhabta ahayd baa taala. waxa yaala god nabi galay meel la yiraahdo oo horteedu ku taalo ay ku yaalaan qubuuro oo aad uga dhaadheer dadkeenan caadiga ah maankaaga si wanaagsan u geli halka kaliya ma ahan. haddaba meelo kale fara badan ayaa jira markaan ka soo tagno qoraalada ku qoran godkaasi marka aan tagno godka kale ee la yiraahdo dhagax kurre halka la yiraahdo markaan tagno waa la mid qoraalada ku qoran way ka sii horeeyeen qoraalada iminka ku qoran ahraamtii faraacinada way ka horeeyeen kuwan baa horeeyay soo bax misna waxaa timaadaa halka la yiraahdo Buurhaybe ayagana kadaalika qoraalada ku qoran way ka sii qadiinsan yihiin kuwa ku qoran Laasgeel iyo kuwa ku qoran faraacinadii ahraamtoodii kuwa ku qoran way ka sii qadiinsan yihiin oo kuwani ayaa sii qadiinsan waa 6,000 oo sanadood ka hor iyo wama zaada nabi ilaahi ciisa alayhi salaam hortii ay ahayd 10 xiga faahfaahintan baa socon doonta haddii alla yidhaa wixii weydiinaa qabtid
iminkaba intan yaree kooban si wanaagsan u dhuux weydiinta soo gudbi anna warcelintii diyaar baan idinla ahay adigoo mar walba xusuusanaya inaad soo eegtid alqur'aan alkariim waa muhiim gabadhayay waa muhiim wiiliyo waa muhiim waayo taariikhdan dhabta ah waxay ku taallaa qur-aanka ayay ku taallaa manhajkan aan ka sheekaynayo wuxuu ku yaallaa qur-aanka ayuu ku yaallaa eebbe ayaa inoo sii sheegay oo rasuulkeenna suubnaa calayhi salaatu wasalaam baa inoo sii sheegay waa nagii ku sii sheegnay casharkan casharadii ka horreeyey ee ahaa in bilowgii aadanaha intaana la gaarin ee la abuuray dhulkii la abuuray oo 2 maalmood lagu abuuray ee buurihii ku xigeen ee wixii maaragtay geedihii iyo dhirtii iyo baddii ku xigtay biyihii ku xigeen webiyadii ay ku xigeen noolihii ku dhex noolaan lahaa oo maalinkii jimcahana nebiyullaahi aadam calayhi salaam la uumay oo ilaahay nafta geliyey ereygiisu ugu horreeyna waxay ahayd wuu hindhisay dhis buu yidhi kolkaana wuxuu yidhi alxamdu lilaah malaa'igta ilaahayna waxay ugu jawaabtay yarxamka allah bay ugu jawaabtay rasuulkayna baa iminka inoo sheegay calayhi salaam 1442 sannadood kadib ka hor ayaan ogaanay annaga laakiin gaala ma oga weli manhajkan ma haystaan ilaan manhaj khaldanay ku socdaan manhajka hagaagsan waa kan